bismillaahiraxmaaniraxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhowaada halkani waa durdurka wararka waxaanu idiin soo gudbinaynaa wararkii ugu dambeeyey xasan sheekh maxamuud oo markan qaaday tallaabo markaasi la yaab ku noqotay bulshada soomaaliyeed taasoo markaasi siyaabo kala duwan dadka ay markaasi uga falceliyeen sidoo kale waxaanu idiin soo gudbin doonaa axmed midoobe oo ka adkaaday xasan sheekh maxamuud iyo xasan sheekh maxamuud oo markaasi ka tanaasulaya qorshihiisii ahaa ee jubbaland cusub sidoo kale waxaynu idiin soo gudbin doonaa madaxweynaha maamulka waqooyi bari Soomaaliya oo soo magacaabay golaha wasiirada iyo sidoo kale walaac laga muujiyay qaabka markaasi madaxweynaha uu markaasi u maareeyay magacaabista golaha wasiirada xilli beelo markaasi wax ka daga deegaanada si ay cabasho ka muujiyeen habka wax loo qaybiyay sidoo kale waxaynu idiin soo gudbin doonaa daawadayaal mucaaradka oo si kulul markaasi uga hadlay xariga Zamzam Cumar oo markaasi dowladda federaalka Soomaaliya ciidamo markaasi ka tirsan ay hoygeeda kala baxeen haddaba qodobadaasi kuwa kale ayaad faahfaahintooda ka bogan doontaan daawadayaal intaan ku guda jirno barnaamijkeena balse marka koowaad soo dhawow muuqaalkan like saarsiina share garee si dad badan uu gaaro waa 20 bisha Oktoobar 2025 hadii aynu markaasi sii ambaqaadno madaxweynaha Soomaaliya ayaa saan xogta ku helno xasan sheekh maxamuud waxa markaasi uu guda galay qorshe markaasi ku aadan muddo kororsi markaasi dowladdiisa ay samayso waxaana uu doonayaa in 2 sano oo kale markaasi loo kordhiyo sida uu qorshaha yahay xilli sirta qorshihiisa ay banaanka soo dhigaan senataro iyo sidoo kale wasiiro ka tirsan dowladda markaasi xasan sheekh madaxweynaha ka yahay waxaana markaasi ay si toos ah farta ugu fiiqeen in muddo kororsi markaasi madaxweynaha loo sameeyo ay dalka markaasi badbaado ay u tahay waxayna markaasi sheegeen in xasan sheekh maxamuud uu ka shaqeynayo 2 sano sidii markaasi doorashada ay u noqon lahayd mid loo wada dhan yahay oo qof iyo coda talaabadan xasan sheekh maxamuud ayaa markaasi loo arkaa in ay tahay mid sii kicinayso xaaladda cakiran ee jahwareerka siyaasadeed ku dheehan tahay ee dalka uu ku sugan yahay waxaana xusid mudan in markaasi xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisa haatan ay ku soo jabeen dhinaca Jubbaland isla markaana haatan ay u jihaysteen in markaasi ay muddo kororsi ay sameeyaan xilli dowlad goboleedyada kale ee qaarkood sida koonfur galbeedna ay markaasi si cad uga hortimid muddo kororsiga xasan sheekh maxamuud sidoo kalena waxaa markaasi soo kordhaya ama sii taraya khilaafka siyaasadeed ee si baahaya ee dowlad goboleedyada koonfur galbeed iyo sidoo kale koonfur galbeed Jubbaland iyo Puntland iyo filla Soomaaliya oo marka ka dambaysa sii taraya dhanka kale xasan sheekh maxamuud ayaa markaasi ku fashilmay qorshihiisii ahaa Jubbaland cusub waxaana markaasi la filayay in markaasi dowladda federaalka ay magaalada Garbaharey iyo gobolka Gedo ay uga dhawaaqdo Jubbaland cusub sida uu qorshuhu ahaa kadib kasoo laabadkii uu ka laabtay magaalada Kismaayo balse wax walba waxay isbedeleen kadib markii dowladaha Itoobiya iyo sidoo kale Kenya ay cadaadis xoogan saareen xasan sheekh maxamuud isla markaana ay si cad ugu sheegeen in waqtigan aysan habbooneyn wax la dhaho Jubbaland cusub isla markaana la guda galo doorashooyinka iyo sidoo kale howlaha kale muhiimka ah ee dalka waxaana xasan sheekh maxamuud ay si cad ugu sheegeen in aysan wax taageera arrintaasi aysan ugu hayn isla markaana ay markaasi weli aqoonsan yihiin lana shaqeynayaan axmed midoobe oo haatan u muuqdo inuu si cad uga adkaaday xasan sheekh maxamuud ayaa markaasi ku kalsoon in xasan sheekh maxamuud uu markaasi ku qasban yahay inuu dib ugu laabto magaalada Kismaayo isla markaana uu ka tanaasulo mowqifkiisii ahaa Jubbaland cusub waxaana lagu soo waramayaa in markaasi maalmaha ayna soo aadan ay macquul tahay in xasan sheekh maxamuud uu markaasi gaaro magaalada Kismaayo halkaasna uu markaasi wada hadal mar kale uu uga bilowdo isaga iyo sidoo kale madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam warar markaasi ana soo gaaray waxay sheegayaan in xasan sheekh maxamuud uu markaasi arrimaha haatan taagan ee Jubbaland kala dhaxeeya awadeed uusan u tagi doonin magaalada Laascanood oo la filayo in xafladda caleemasaarka madaxweynaha waqooyi bari halkaasi ka qabsoonto taabadalkeedna ra'iisul wasaaraha uu halkaasi u diro isagana uu dib ugu laabto magaalada Kismaayo oo Axmed Midoobe halkaasi ay wada hadallo uga bilowdaan balse waa xogo markaasi aanan sugnayn oo haatan markaasi ina soo gaaray laakiin waxaa macquul ah in xasan sheekh maxamuud uu marka hore caleemasaarka ku hormaro intaasi kadibna uu Jubbaland markaasi toos u aado xaaladda markaasi dowlad goboleedka Jubbaland iyo filla Soomaaliya ayaa dhowrkii bilood ee u dambeysay cirka isku sii shareereysay kadib markii
dowladda federaalka ay guda gashay qorshe ay ugu yeertay New Jubbaland, taasoo Jubbaland iyo sidoo kale dowladaha dariska ee Kenya iyo Ethiopia ay arrintaasi si cad markaasi uga soo horjeesteen. Dowladda federaalkana markaasi ay u suurtageli weyday in dhaqdhaqaaqyo badan ay ka sameyso gobolka Gedo xilli maalmo ka hor wafdi ay u dirtay magaalada Doolow halkaasi laga celiyay. dhinaca kale madaxweynaha waqooyi bari markaasi dowlad goboleedka waqooyi bari Soomaaliya Cabdiqaadir Awfirdhiye ayaa soo magacaabay golaha wasiirada ee maamulkaasi oo in muddo markaasi la sugayay, waxaana wasiiradan oo tiradoodu ay gaarayso ilaa 22 wasiir markaasi uu qorshuhu ahaa in markaasi ay dhammaan ka dhex muuqdaan beelaha halkaasi degan, balse beelaha qaar ayaa markaasi ku tilmaamay magacaabista golaha wasiirada in ay tahay mid markaasi sharci darro isla markaana beelaha qaar lagu qadiyay halkaasi, waxaana beelahaasi oo markaasi ka hadlay qaabka uu madaxweyne Firdhiye u maamulay golaha wasiirada in ay tahay mid markaasi aan laga fiirsan isla markaana loo baahan yahay in cadaaladda markaasi la wajaho. beelahan ayaa markaasi waxa ay tilmaameen in la duudsiyay xuquuqdii ay ku lahaayeen maamulka waqooyi bari Soomaaliya, waxayna markaasi ku adkaysteen in madaxweynaha uu arrintani dib markaasi uu uga fikiro isla markaana uu sameeyo wax markaasi beelaha oo dhan ay ku wada qanacsan yihiin. dhinaca kale madaxdii hore ee Soomaaliya ee haatan ku midaysan madaxda markaasi mucaaradka ee golaha samata bixinta ayaa si kulal uga hadlay xariga dowladda federaalka Soomaaliya ay kula kacday Marwe Zamzam Cumar Cali oo markaasi ka mid ahayd hooyooyinkii dhawaan laga barakiciyay xaafadda Sinai ee degmada Warta Nabadda ee magaalada Muqdisho, waxaana arrintaasi ay ku tilmaameen xadgudub markaasi ka dhana xuquuqda aadanaha, waxaana markaasi si cad ay u sheegeen in arrintaasi dowladda federaalka Soomaaliya ay ka waantowdo isla markaana dib xorriyaddeeda loo siiyo Marwe Zamzam. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo qoraal kooban uu soo saaray kaga hadlay arrintaas xariga lagula kacay Marwe Zamzam ayaa waxa uu yiri xariga Zamzam waxa uu markaasi sii kordhinayaa xasarada haatan taagan isla markaana waxa ay markaasi keenaysaa in dadka ay carab badan ku sii abuurto, waxaana xasan markaasi Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu sheegay in arrinta ay dowladda federaalka ay sameynayso ee xariga iyo cagajugleynta ay uga sii darayso xaaladaha cakiran ee haatan ka taagan gudaha dalka. madaxdii hore ee Soomaaliya guud ahaan ayaa arrintani markaasi si cad uga soo horjeestay ee ku aadan barakicinta shacabka ee magaalada Muqdisho, taasoo dowladda federaalka Soomaaliya ay u muuqato in weli dhag jalaq aysan markaasi u siinin. haddaba dad nala soo gaartay dhamaadka muuqaalkan fadlan like saar siina share gare si dad badan uu u gaaro, sidoo kalena aragtidaada qaybta hoose ee faallada inoogu reeb. mahadsanidin.